laga wada hadlayo shirka aynaba la doonayo in lagu qabto waxa ugu horeeyo horta intaan shirka la qabanin inay aynaba isugu yimaadaan halay burco inay burco isugu yimaadaan iyagu inay arinta shirka ka hadlaan marka iminka ma jirto hadda shirka shir diyaar ah oo burco imanaya maadaama aan shirkii la qorsheynin wada hadallada saxaafadda ka baxay qolada khaatuma ay sheegeen in shirkii burco la isugu imanayo shirka burco waxa heshiiskii ku qornaa in la isugu yimaado shir loo dhanyahay magaalada burco gudiyaduna ay arintaa ka shaqeeyaan marka waxaan doonaynaa in aan saxno si ay wada hadalladu had iyo jeer u taabagalaan maadaama maxaanku dhahday waxa laga hadlayaa ay yihiin wixii labada dhinac khilaafiyahee ay doonayeen in la isla meel dhigo in labada dhinacba ay ilaaliyaan inaan wax turxaanihi oo carqaladayn kara wada hadalladii labada dhinac aanay imanin waxaana iminka hawshaa qabanqaabada la qabanaya shirkaasi uu ku taabagelayaa ama uu ku hirgelaya waxa weeye waa gudiyada burco isugu imanaya hadda wixii ka dambeeya hawl kasta oo la qabanayo waxa isugu imanaya gudiyo marka ay dhamaystireen markaa ficilkooda iyo shirarka ay ku talagalaan la qabanayo waxaan markaa ka codsanaynaa qolada dhinaca kale inay iyaguna ilaaliyaan annaguna dhinaca iyaga waan ka ilaalinayna shirkayga jaraa'id waxa weeye inta gudoomiye xigeenka xisbiga kulmiye mudane maxamed kaahin awiri weeyaan xurkayagu inta yareen ku kobcinaya waxa weeye saaxiibada khaatumo shirar badan oo hore ayaan wada galay shirarka mid waliba si fiican oo guul ayuu noogu soo dhamaaday oo ka kala uu noogu dhiibay shirka dambe aynu galeynana waanu wada qorsheynaynay goobtaanu isla meel dhigaynay qolana wax ka duwan manay faafinaynin manay sii sameeynin haatan waxa soo dhawaatay guushii ayaa soo dhawaatay guusha soo dhawaatay waxa haboon in laga ilaaliyo midiroorka oo sidii lagu ballamay wax wada jira oo wada qorsheysan aanu labada dhinac ay isla gaaraan marka waxaan leenahay saaxiibadayo sidii fiicnayd ee kuwii hore aynu ku soo wadnay inta dambana aan ku dhamaystirno wada jirkii aynu wax u qorsheynayna aynu wada qorsheyno beeraha iyo maxamed kaahin iyo ay sheegeen waxa weeye halka heshiis baa lagu gaaray heshiiska lagu gaaray qodobkiisa shanaad waxaa ka mid ahaa in isu yimaadaan laba guddi ka tirsan guddiga wada hadallada xukuumadda ama dowladda somalilan iyo khaatumo ay bisha 10keeda burco isugu yimaadaan laba guddi baa isu yimanayay khaatumo wararka laga soo sheegay waxa weeye dagaankii bay dhex mareen wararaan la isla ogeyn bay sheegeen oo leeyihiin shir baa dadku isugu imanaya ee burcaha laga soo qayb galo arrintu sidaa maaha waayo weli lagama heshiin sida iyo cidda iyo meelaha ka kala imanayaan iyo inta ka soo qayb galaysa weli lagama wada hadlino waa waxa loo balaysay marka wax aan laga wada hadlino labada dhinac ka wada hadlin haddii dhinac fidiyo waxay noqonaysaa wax ku keeni kara carqalad geedi socodka shirkaas maxamed sheego afrilaataka dib looga dhigay waxay isugu imanayaan labada guddi oo ka tirsan dhinaca Soomaaliland iyo dhinaca Khaatumo labada guddi waxay ka wada hadlayaan habka shirka loo qabanayo iyo cidda ka soo qayb galaysa iyo sida loo keenayo marka kadib baa ergooyin iyo iman doonaan haddii de burco sii ahaado marka la isla garto in ka labaad burco lagu qabto iyo haddii meel kale laga dhigayaba labada guddi bay hawshu u taalaa marka dadweynihiiba confusion badan baa galay warar badan baa la soo weydiiyey marka xagga waxa ka baxay warar aan la isla ogeyn baa dhinaca Khaatumo laga soo sheegay marka waxaan leenahay arrinta labada guddi balansan dadweynuhuna ay isgelinin wax walaahow ah wali waqtigii iyaga loo yeeri lahaa lama gaarin guddiga xagga xukuumadda dowladda Soomaaliland ka soo jeeda waxa riixdooda halka ka Khaatumo lagu wada hadlay waxa la gaaray heshiis ah in gobashii uu dhigay madaxweynuhu in beesha dhulbahantee shir loo qabto inay fusho oo qodobada ka mid ahayd
lagu heshiiyey shirkaas beesha loo qabanayo waxaa la isla gartay inuu baahan yahay qorshe iyo isafgarad sidii loo qaban lahaa in markaa guddi qabanqaabo la abuuro ayay noqotay guddigaa qabanqaabadana waxay isla ogeyd oo lagu heshiiyey inay shir ku gasho burco shirkaas oo ay kaga tashato labada guddi ee dhinacna ka soo jeedo khaatumo dhinacna dawladda ka soo jeedo in lagaga wada hadlo shirkaas sidii loo qaban lahaa oo lagu qorsheeyo oo yaa ka soo qayb galaya shirka maxay noqonayaan qaabkeeba dadka beeshan shirka loo qabanaya ay shirka uga soo qayb qaadanaysaa qaybaheeda kala duwan hadday tahay beelo hadday tahay si kaloo ay markaa u aragto ama aqoon-yahan soo dirsato ama qabaa'il sidii ay wax u qaybsan jirtay qabaa'il soo dirsato lagu qorsheeyo oo la isku afkarto ajandaha xataa la isla eego iyo waxa uu ka koobnaanayo sidii lagu yiqiinay guddi qabanqaabo inay labadaa guddi iyagoo ay arrintaa uga wada hadlaan marka waxa la isla afkartay waxaa shirkaa qabashadiisa bisha 10keeda oo iminka sidii maxamed kaahin iyo odayaashii ugu horreeyay u sheegeen loo laga dhigay waqtigiisii dib loo dhigay duruufo iyo hawlo yimid dartood bisha 24keeda laga dhigay intaa ayaa lagu heshiiyey waxaa markaa na soo gaaraysa oo dadkii su-aashoodii nagu badatay oo meel walba laga soo hadlaya ama la soo sheegaya ama wararku noo soo sheegayaan in guud dhinacii khaatumo ay campaign galeen olole iyo warar aan la isla ogeyn oo aan ku jirin oo ah inay dadkii kicinayaan kuwii dibad joogii qurba joogii iyo guda joogiiba ay wargelinayaan ay leeyihiin shirweynihii dhulbahanta loogu yeedhay baa la qabanayaa oo burco lagu qabanayaa bisha 10keeda ka soo kacay iyo odayaal iyo qabaa'il cuqaal garaado odayaal kale dad abaabul la leeyahay istiyaariye markaasuna mid meesha ku jiray maaha shir loo qabanayo iminka dhulbahanta oo loogu yeedhayaana ma jiro shirkaasu qabanqaabadiisii ayaa loo ballansan yahay khaatumana waxaa laga filayaa inay sidii laysku ogaa ku dhaqanto oo ka soo qayb qaadato intaasuu baan rabnay inaan dadweynaha u baahino oo u sheego taa ma aha laakiin anagu waa run waxaanu khaatuma ma nihin dadkuna ma wada aha beesha ama deegaankaasu waa laga yaabaa qaar taageersanay inay jiraan kuwa gaaraad adigu iminka tilmaamaysaa beeshoo dhan baanuba ka hadlaynaa yaa laga yaabaa wax taageersanay inay ku jiraan in badanna aanay taageersanayn annagu sababta dib loogu dhiganayana taa ma aha ما أنا